sanad guuridii 21aad ayaa ku wareegatay askumowkii golo abwaaniinta Soomaaliyeed ee laga qowday beledkum Baydhabo oo ku qeyb galeen mudane ee mujtamac la kacasuumay munaasabada iyo fanaaniin abwaani shilgadiisan oo ku tirsan bahda mu'allifiintii afmaalka koonfur galbeed xuskun oo sanadkun yeetaabageliyaasi shirkadda Camel Forex Trading yahay tito guud ahaanba ku dhiidi dhulka Soomaaliyeed meel walba oo yowroogaan abjareen fanaaniin iyo weliba heesayaal muusikiistayaal koonfur galbeedna qiib ku hayti iyo oo xuskun Baydhabo isku dhii xarunta fanka koonfur galbeed oo isu hogaamiyo abwaan Maxamuud Xaaji Maxamed Tarash furowkii munaasabada may baa hadallo kooban oo ku hadalaya fankii abwaanka kaalinta iyo ku jaraan bulshada iyo in qareemowka kadib marxaladii ku sugan yihiin mujtamaca Soomaaliyeed ereye murti abwaan alifi ka cabrayaan maansiyo alifayaan taabadaas ha ku jeediyay Maxamed Jimcaale Bitiyay oo kumid gaabadka lan iko oo muustikada tib iyo shilgadiisan eed ungoradaw ekanol deegaanadan koonfur galbeed godobhaan beledka waba xusuusdane abwaanadii hore dalka dhahaada jiraan waldhimada wal maanaha bogtaalo dalka ban roogne nagadan hatta way baan ilrooge abwaanadii digil imirafleelankan kuwinay Maxamuud Xaaji Maxamed Tarash ali ayag dadkuna xusaana iyo kumid dadkii dhimadayna xusaana dadkii noolna xusaan waqti ilaahay geersi amrisha ilaahay ka samay waba marwalba wareedina ku wareegasa geeg way ba saaranta Maxamuud Xaaji Maxamed Tarash nan kuwin un aragayno namale أنا ويبقى جرتة إني هسه بدم أسوبي دت بدم أسهاري أنا سينهور سلنا رجع هيتان موسيقى مركان بردا إنك إباريو تضبطت مني كذا معلمين تقول هاي برتكم ماذا هاي أفيال هدول يقولون موسيقيستو ويت تومي جيتارة تومي سكسوفون تومي كابان تومي دربان تومي هسه لحمة عريه أنا سكفيني شيء لازم نسمعناها هاتين عريون لحمة وانا تومد كبني كتومد نقول بما ويبل كهلاي دلكون جداجي شنقفو ولا ساس ويرس محمود حاج محمد Tarash أحمد ناجي سعد غير بايدو أنك آلوي أبوين تدلكا كبتي كوميدي نولا مدمن إني ميركل كوين قلت ويبل دقناي حافظيشان ويبل كوميدي وقفوك الأوتومد أو هيسو داود المسحب ويبل كله هيسو تومد ويبل كوميدي عمر دولي صفقة كجرة دري مكرت Tarash مركم ويبوا قفوكي بالداي أود أركيزكي بالتأكي القيمة درسنا ونأنت نوسارني لكن والله أنا بري وأفيال كانت تدقيل مرفلان غيري أنت كلام مركز دلكو بداية يروقدون أو شرح حسوتي ونون جيجا حسانة هذا وهذا سيلنا بالشديد الصومالي أو أفمايش كذا لا صن أبواني كيشو جيجا غيري باطل أبواني كربلاء استدم دويا أنا بكم ده أفكار مسك أمانة ولا هاي بري سي هاي بري سوى لون أريم لون لحمة لون توما لون قاضو أردي سكم ده أنا مركا ما نوال الروجو كم ده وبا كل الروجو إن نكرايا إن نور الروج عبد آدم نور يروج أنجاح الروج بالوديد الروج جاكوري الروج بدنا لكن مربل بقفاء ولا سارنتا هذا مالن كان إنسانته جيجن حسكاسن الروج هاني لمدن هاني نوربا abwaan Maxamuud Xaaji Maxamed Tarash oo hadalka bitiyay kureed hadalay ya kursulumi golo abwaaniinta Soomaaliyeed 21 sano ka hor sababtii lan aas-aasay taasoo uu ka sheegay abwaanka inay ahayti waqti abwaaniinta Soomaaliyeed iyo leedayanga sinana ku daba koyti afkana long obsidi inay usanagada ko dabar goho waana baaba silan hela golo mideeyaw afmaalka badbaadiyaw afkii dhaqanka bulshada Soomaaliyeed maadaama dalkii dadka bu usanagadi ko dudunsan oo baabeen dhamaanga akademiyalkii la kakeedii jari afkii dhaqanka Soomaaliyeed nimadina ku sugeen hawaalis meel make up way ba kala dhimaday eed ma sac lanka ogol helo sinaga
مالوس كلمة دي مالوك ويبقى جريستان معنا عيسى كان معنا عيسى نهري والجر أما أو أرتي يدحضان الجري أبوانكي أو أرادون أو أقباي هاي أرادون قبلالة هاي هو الاسم الملكوت وإما كان الجري أبوانين بلن من طول الرجل هذه جاء على الحمل يردان وإذا فلاني إني أنا سي أو أن النون أبرزه أرقنا تعرف دي أرقنا ولا ننتري أرقنا أسجو أرقنا سيدنا أساو أرقنا يا هنو قلب داري أنو نوايك أبصدانه إني أنو ساس أكل نجم هتب ويبها جبي أنا مرجان ويبك لا ده سومالي أنو ننشي معناها يا كله محمد سياد ويره خير لسه محمد سياد يا أبواني تانو إيه ما يجري أبواني تواري وجامعين لانك جامعة ذاك باي إيه ذا قيمة الله جامعة دوم حتى أو ميلون بوبو هاين جامعة دوم يهور لانك ياك باي يا أبوانك لك قيمة هاي محمد سياد ويجع إليه أرني كان جاي كا ما أنا قيمة أنت أو من لا قيمة يسيل لي بره هراب تنس كوينان عادي أو كبا ولا شيء هراب تبدي ريد هاني جامعين هاينهم دورين تياتر كلا ككل مهرب هس هيبنا لكتوسي يوم تو مريم الصام وإرهنا إن أمدا حساوينا دنت أوهقنا حساوينا هقرب والساسة هي ساسة يلا ما ذكر الكلام دبوينا هنوين حساوينا دنت أوهقنا دبوينا هنوين حساوينا يدوينا Somali markoon uursadeen nimankii uursadeen abwaanka saasa maxamed sawaad qiimaya ilaahay janaadi sii haddana haddana maxamed siyaadkii haddana iyooglee haka kayn haddana maxamed siyaad guryaala dhisi gawaarisi mashaariyo kan jaamacadda ee ka saraysa kaguna badi markaasa haddana يوغلاك ونشبهين نو أبوانين تمثال با ما يبان جبتي أبوانين سدح قيبط يا إنسوب سناي آل تجباني حمراوي يا هرقيساوي يا إنسوب سناي ونا هديون آل تجباني هاين آل تجبانك ما يبان لهريه هسو مايك آل تجباني يلا راي هسو حمري أنا حمراوي يلا راي هسو أو أرتيس أو محاتري أنا هرقيساوي يلا راي مركي هرقيسيا كقالن يا صلاة إذا محاتري مركم أنا ما كجرن يوغلي هذا أنا ورنيكو نيكو يوغلي كردو أنا قريبا ويبا يندسي ويبا ينجاري ما دعوينا كفر قرب الصومال إلى الله كنقدر يعني الجاسيس حسن لفتك يا قرو ينجاري أنا إنتاس أنا إنتاس عند أنا سيشاقي هكذا جرني تاريخ ده لقاس روغنا كنتم سنة بالكير يا أرتي أما كنتم سنة طنطة سلاسان هنسور نايم قولوا أنا نفسي سنة أرجع سنة وكين سور نايم
intaas maalmood anaa dadsin sheegaya tababarsho socday may umale hadda argaasan hortiin suurnayti intaas maalmood anaa dadsin sheegaya tababarsho socday may umale inisin raali geliyeen معلمين أو إن قرنتين كنايا إن تبقى هذا النصي kaasimiga telefishinka koonfur galbeed cumar mustafa nuur oo munaasabada dadkii la kacazuumi ku mid hayay hadallo isu jeediyey baa eedanka amaanay xuskun istowyowka maalinta aas-aaska galo abwaaniinta soomaaliyeed 20 sanad guuridiyo kureed baydhabo ku dhiidi waana ha ku qiibgal u socona agaasimiga si godob hangeen amaani kaalanta lang hilmaamo kornay abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash ha ku qaadadi fanka soomaaliyeed taasoo laka ogaado koreyeeri wala gobi i hees abwaanku usi alifi geekani la dhegeensadoohaye guud ahaan dalka oo dhan waana geertiyeeri iniyo tarjumadanga dad murti dhuux oo ku dareera khubrada caalamka ee dhiniga luuqado undhuunfeedan wala badan oo moto wala la kamada daaliyo waliba hawada umataha marsiiyay abwaaniinta iyo fanaaniinta marka xafladiyo iyo barnaamijyada intuna ku gabdaadan waliba wal waajib oo eedana way mahadsantiin dadkii abaabuli waqtigan isku koobayni dad badan oo dambeeyaan walaana surumi waylay atay ana mahadnaga waana eedana mahadsantiin aragahayna sanadku sifeelan Allah xusi sanadku sanadshi ilaahay bashbash barwaaqani deersi fanaaniintaana kulli abwaanku waa barooga fariiqan iyo dhiibi fariintisna way bahaaytahay in walaaqatu ku baacda la baraarugo abwaaniin faylana oo reedi in la helo inoo maayay hada shay oo muhiimada meel taalo baata abwaaniintan oo koonfur galbeed cilada iyo sheegadan way baato daryeel xumo iyo dhibaato badan iyo sheegadan in kasto dad kale la qabaan laakiin arrinta kale oo dhinaga saxaafada way bajartay email ara fanaaniintan walbadan ku qorna dukumeenti badan lahayna insha Allah hadii ilaahay idan wariyalkaana dadkay ku weynayna roogan walaayatu ku baacda in abwaaniinta taariikhdiyo dukumeentidiyo iyo barnaamijyadiyo lo qaro la diyaari shakhsiyan ana walbadan maska amaano laakiin tabartana busku yaraatoy inta yaro uu warbaahinta ka jarna wal meel ara dukumeenti macna leh wala fiirsado kor muddo kooban oo meel roog yahayna meel ara insha Allah haddana heestii ka dambeeyay inta soo biyaan hadii ilaahay idamo waxaan naga doonta hees oo astaan qaran ee la arko astaan oo insha social media no aragahay
abwaaninta way baan baahanyiina guri nolol kala ma ay wareen baahanyin in taariikhdiyo la reebo wala ku qoro hadhowdii hadii lambaha dabagal ka suubino la helo kor intuu saata sheego baato wala ku weydiid hal fanaan wala mada iyo wala ku hela google ku weydi buug weydi ma helo marka hata maadaama haani horna dhaafana anta hata roog buug ku diyaarinay barnaamij ku diyaarinay wal hadhowdii madiyo bahan ama amuudo wada roogano la ka towdoon إذا أنا ما سنتين والبضنا شيء فضلي لكن وقتنا جبوا ويبقى سيجارة كمان عندنا أبوانينت يودتكها وقيم قال البرنامج كان إن شاء الله ويبقى إلهي كوتوغان أنت سنتكو سنت شيء ونو عفمات أبنو نبدان بش حدين حسن محمد حسني أو قدوميها إن سكويك الصحفيين تكوافر قلب دوان قدومي كوحجان كواد أورك الصحفيين تقارن قصة معليات مركب مقعد الله جابي لونجور ذا في سجى ويبقى أسينا هذا الأسجيدي إريكومن إد نوتي سنكاري وري فرحدني إني ونجيك هكول قيب قالنا بعض فنانين تا يولي أفمالك الصوماليات حسك مالنت أبوانين تقولوجو تاسو ساري قدوميجي إني أتا مالنوينغا وانن أشعبك الصوماليات دومان أفمال ذيو وريالكني يقيب كويين ولي بالله همباليو سنة قولة مالنت أبوانين الصوماليات الحساهاي ولي بشرفيني أها ونص حافظة أنت بقيب قالنا koonfur galbeedna la ku xusa wala kaalay markii la maad oo golaha abwaanad ama maalinta abwaanka la xuso oo koonfur galbeed u dhiido oo si sharaftaan ku qayb galna bahdeena saxaafadda marka hore la sheegay abwaanka qiimaha uu sileeyay iyo wacyigelinta bulshada iyo dhaxaadka bulshada Soomaaliyeed intii ay wacyigelin badan ku qaadeen marka walgeeka tashileedii inta la koobo korma qiimaha abwaanka iyo kaalantiyo bulshada ku jiran marka anoo ka hadalo magaaga saxaafadda Soomaaliyeed iyo saxaafadda koonfur galbeed waliba laha abwaan tarash iyo team shay ambaliyo sanadkan iyo sanad kale kiishay sanad barwaaqo iyo khayr iyo xaflad tan ku qeyb agaasimaha raadiyo koonfurta TV koonfur galbeed hore in sheegay kaalanta baahinta abuuriyaalka ku qayb qaadayeen intii abwaanada hal abuur shaqo dadaalada suuqyaan iyo intii la muuji marka taasan agaasimaha uu sanin ballan qaadi waaye dadaal iyo juhud iyo la gabi doona dadka deekan ka dhawaa saxaafatan oo saaxiibana shaqahaana oo marka wala rajay walwalba oo qabadan walwalba iyo duriyaan oo maskaxdii oo qabata intii oo ilaahay la kanagada leeyo qadaan iyo sidii qadaan kala maamusa kun sanad guurida sanadkiiba marlug obadaw ya koonfur galbeed aan hayti toon nasiib kula qiib qaadan 21 sano guurida golo abwaaniinta Soomaaliyeed yaana sanadkun markii uu horeeyay dhacdadu xusku golo abwaaniinta Soomaaliyeed ku dhiidi xarunta fanaaniinta koonfur galbeed oo uu maamulku iyo abwaan Maxamuud Xaaji Maxamed Tarash oo goosan in iska jar gabdhii kuri dhalinyaro dhiig cusub fanka ifagaaro koonfur galbeed murtidii isugaanti laka awlaaliyaw ka tababaraw siyoon qaadan mas'uuliyadda fanka murtidii dhaqanka koonfur galbeed sijiilka dambo dhandeersii afka dhaqanka suugaanta iyo ka cabirayaan waana hayti ujeedooyinkii golo abwaaniinta Soomaaliyeed lan askumi Sure.